dalkiyo codkiisuu doonayaayo dulmiga isticmaalkayo qabiilkuu diidayaa Soomaalo isku duuban iyo dimuqraadiyad buu rabaa Soomaalo isku duuban iyo dimuqraadiyad buu rabaa dalkiyo codkiisuu doonayaayo dulmiga isticmaalkayo qabiilkuu diidayaa Soomaalo isku duuban iyo dimuqraadiyad buu rabaa Soomaalo isku duuban abtiyow macaan waad salaamantihiin runtii farxaddayda lama soo koobi karo calooshayda rogrogmaysaa runtii ma aqaana inaan isku dardarsamaan ka yaabayaa ilaahay madaxiinna ha raajiyo haddii kursi la geli lahaa dhajidabula ay maanta ku dhawaaqi lahayd waa ku dhawaaqdeen ducadiinnana horay baanuu qabay 12 sano ka horo haddana waa ducayseen horayna waad u ducayseen ilaahay garabkiinna alla ha galo madaxiinnana alla ha raajiyo calanka reeabtiyaashayna kor allah ka yeelo kor allah ka yeelo kor allah ka yeelo wixii sarreeyaba waan ka sarraysiyey anigana insha allahu biidnillahi kariim wiilna waxaa la yidhi waalidna uqubale wiilna inkaar leh insha allahu anigana ducadaydii waan ku dhejiyey dhejidabula iyo reeabtiga insha allahu calankiinna sidaasaan ka yeelay wixii koraba allah ka korraysiiyey abtiyaalow aad iyo aad baa u mahadsantihiin aad iyo aad baan u faraxsannahay wixii aan sheegi laheenoo faraha badnaa wuu naga kala fakanayaa waxaa aniga ila socdaa wafdi baa ila socdaa wafdigaas waxaan ka imaanay hadda 4 habeen 5 habeen baa waxaan ku dhaxnay meel la yidhahdo qorof xaraar iyo kutulow iyo meel la yidhaahdo qajaajawan iyo qajaajatu dhul la dhahan soo marnay 5 habeen baan ku maqneen sidan oo kale tol noo soo dhoweeyey waxaan aniga waad ogsoon tihiin waxaan la yidhaahdo governatorialka iyo kursiga senadka waa wax wajeer oo dhan laga doonayo soo maaha waa wajeer dacalladeeda soo maaha bute iyo buune iyo qorof xaraar buu ka soo dhici soo maaha marka sidaa awgeed aniga waxaan la line-up ahay nin la yidhahdo ugaas sheekh maxamed odayaashina way ila socdaan gafanaaga ilama socdo kollow wuu iniin imaan doonaa odayaal laakiin xaggiisa ka socdo ciddanay tareecabe 5 ah ina socota iyagana in si sharaf leh liila soo dhoweeyo oo in salaamaan baan rabaa insha allahu biidnillaahi kariim xaaladannada annaga waa sidaa waxaa waayey doorashaa la gelayaa insha allahu ilaahay tii khayr qabadna allah nooga dhigo aniga 12 sano ka hor aan kursi soo haweystay kursiga baarlamaanka wajeer south baan haweystay abtiyaashaybaa waxay yidhahaan abtiyo waa kuu ducaynaynaa dhaayo uu tanaasul maqaawul markaan ka diidey oo reecaabbahay ka diidey yaa waxaan idhi waxaad yeelaysaa niyahow nin yar baa tahaye abtigaa haddii uu baarlamaanka gelaya abtigaa haddii jiray u tanaasul sidaasaan ku tanaasulay ducadiinnii aad ilaa maalinkaa ii ducayseenna ilaa wakhtigaas ay ila socoto sanata cawil ma qaateen marka la iigu celiya waa weyna taas ma qaateen waa mahadsantihiin waana inka filaayey waxaan idiin sheegayaa ninkaan nin meel kale ka imaaday ma aha annagaa dhalnay waxaa la yidhi ama buuriye laga dhal ama biri laga dhal annagaa dhalnay hooyadiis hadda bidhaanteeda waan arkaa dadka ay ku dhex jirtaa waa taas meesha taagan waa gabar baageri ah aabbihiisna waa taagan yahay waa kaa abtigiisna waa taagan yahay waa aniga marka sidaas ayuu nasiib u leeyahay ree aabbihiisna hadduu lu gashado ree abtigiisna lu gashado muslimiinta kalena uu lu gashado daasaaba iska soo boodi doona sida gocoso roob ku dhacay ma garateen waan idiin duceeyey waana idiin sii ducayni insha allahu roob aan feeraynin nabadgelye iyo barwaaqaan idinku ogahay insha allahu ninkaan waan dhalee waa nin ducaysan waa nin aan farqaha ugu xiray waa nin loodayda anoo iska dhex joogo oorta ay xiimi yidhi waxaa looma baahnee soo bax waa nin xajki i geeyey oo nabiga xaradiisa igeeyey
وأنين أو إسلام هو أنت صدور حد كأسو نين وكلا تشري جري حد كتجي وأنين إن شاء الله عمري إن شاء الله هذا رأي إذن أنفعي رأبتي والبهار عنك قبيل madaxuu noo saaran yahay saanuu ku soo gale in la dhaariyo unbaa waarta leh in la dhaariyo unbaa waarta insha allahu biidnillaahi alkariim markan hadday dheef tagtaynata waa inaan ka faa'iidaysan oo cabil meel aan habeenkiina guri u galna dhaartiina guri u galna oo sidii yacni uu cabil uu kursiga u isnitaannimada u soo fadhiisi lahaa falkeeda aan galna midda koowaad haddaan ka hadla ninka si arkaysiin waa nin dhallinyaro ah ninka dhallinyarada ayaa fahmi karaa baahida dhallinyarada ee hays ninka dhallinyarada ayaa fahmi karaa dhibka dhallinyarada ee hays ninka dhallinyarada ayaa dareemi karaa wax walba dhallinyaro ay qabaan marka annaka haddeenaan inta meeloon la soo marne nin maanta ku soo dawakacay malaa qarish iyo qabiil annaka waxaa ninkan u soo dawakacne midda koowaad waa cadaaladnimo waxaan raadinayn waa cadaalad markan maxaa rabnaa maanta uu hiili u baahan yahay inaad u hiilisiin oo wixii gabdhe gabasaaraha dhexda ugu xidhitiin oo meel walba aad u geshiin sidii ninkan uu dhini aad kursiga ku soo saari lahayn falkeeda aan galno maxaana waa daad cabil dooratiin inaad ku faa'iidin moogii kuma qasaaraysiin markan walaalayaalow anakoo cadaalad fiirinayna maxaa rabnaa ninkan inaan lala qaadiin anaka si aan dhalinyaro u nahanay maxaa go'aankayna ah inaan cadaalad aan fiirina oon cabil meel walba maray aan la soo marna anakoo qarashii qabiil fiirinaynin anakoo fiirinayn yaa ku xigaa anakoo fiirinayn yacni ilmaadeera aad tihiin waxaan ku daba socon dhammaale waa cadaalnimada ninkan uu dhinay ka muuqata isaga waa nin cadaaladda intaasoo marna godob waa laga gale marka hadda maxaan u baahannahay inaan ilinta aan ka tirna aan u heelinna oon garabkiisa istaagna habeenka dhaarbo